Wareysiyada booliiska mararka qaarkood waxay socon karaan saacado badan, xitaa maalmo, laakiin xaalada dhifa wareysigu wuxuu ku dhammaan karaa ilbiriqsiyo gudahood. Kadib qiraalo iyo been abuuro lagu dhex daro wareysiga, si fududna laga helo xaqiiqada. Xeeldheerayaasha wareysiyada booliiska ayaa tan u fahansan habab aysan bulshadu fahmi karin, laga soo bilaabo qirashooyin lama filaan ilaa isku dayo baxsad. Kuwani waa 5 ka mid ah wareysiyada booliiska ee ugu waqtiga yaraa taariikhda la xusuusan yahay. Waxaan ku bilaabaynaa dambiile Raymond Gates oo si cad u muujiyey sida qofku ilbiriqsiyo gudahood u aadi karo xabsiga. Raymond waxaa la keenay saldhigga booliiska kadib markii ay booliisku heleen muuqaal muujinaya isaga oo weerar ku haya gabar 17 jir ah. Booliisku waxay ahayd inay caddeeyaan in gabadhu aysan ogolaan xiriirkaas ee galmada, taasoo adkeyd maadaama qayb ka mid ah weerarka oo keliya ay kaamaradu duubtay, inta kalena ay qarsoonayd. Yacni caddayn dhammaystiran ma aysan haysan booliiska. Laakiin arrintu aad bay uga fududaatay kadib markii Raymond isla markiiba uu wareysiga dhexdiisa ka sameeyey qalad weyn oo si toos ah isaga ugu caddeeyey inuu galay dambiga loo haysto. Raymond ayaa yiri hadalkan: gabadhan gurigayga ayay timi, waxayna ii sheegtay inay galme la sameyso si gabarnimadeeda u weydo. Saaxiibayaal, gaaladu ma lahan diin celisa, waxaasna xaggooda waxba kama ahan. Wuxuuna yiri isagoo hadalka sii wata, wax walba diyaar ayay u ahayd, laakiin dhowr ilbiriqsi ka hor intii aysan wax walba dhicin waxay tiri ma hubo iyo waxyaabo la mid ah. Waxaan ku yiri fadlan ii sheeg. Waxay tiri wax walba waa diyaar. Way ku qanacsanayd inaan isdhunkano, laakiin markii ay qaylisay iyadoo leh jooji fadlan, sidan ha igu samayn, aad bay ii xanuunaysaa. Waqtigaasna anigu durba waan sameeyey. Kolkaas ayay tiri way xanuunaysaa, waayo marka gabar biganabadeeda laga qaadayo way xanuunsataa. Isaga oo xitaa isku dayin inuu qirto dambiga, booliisku markiiba waxay heleen wax kasta ay ugu baahnayeen inay ku xukumaan, taasoo ahayd in falku sameeyey isaga. Waxyar kadib saaxiibayaal, waxaa lagu helay dambi, waxaana lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah. Laakiin inkasta oo wareysiga Raymond uu ku dhammaaday wax ka yar 10 daqiiqo, Cantrell ayaaba ka sii yaabadnaa, isagoo wareysigu ku dhammaaday ilbiriqsi gudahood. Halkan markay maraysa saaxiibayaal, xeerka booliiska wax kastoo aad sheegto waa la duubi doonaa, waxaana loo qaadan doonaa qiraal. Halkan markay joogto waa inaad taxadartaa oo aad ogaataa waxaad sheegayso, xitaa si kaftan ah hadduu hadalka afkaaga ka baxo waa lagu xukumi karaa. Cantrell waxaa loo xiray isagoo lagu eeday inuu ceejiyey gabar isla markaana uu weeraray. Dabcan ma uusan doonin in lagu helo dambigaas. Wuxuu yiri maya sug, laakiin nasiib daro Cantrell katiinadaha gacmihiisa ayaa muujiyey inuu baxsaday, waxaana dib loo qabtay 4 saacadood kadib. Lama oga kadib baxsigaas wixii ku dhacay Cantrell, laakiin muuqaalkan ayaa weligiis ka dhigay mid lagu xusuusto taariikhda wareysiyada booliiska. Hase yeeshee, Ricky Hawthorne wuxuu doortay hab ka sii fudud sidii la filayay oo uu ku soo afjaro wareysigiisa isagoo qirtay dambiga isla markiiba. Ricky waxaa laga helay dhiig ku daboolan meel u dhow meydka Lara Quisher iyo Tommy Skins. Waxaa muuqatay in Lara la weeraray. DNA-da Ricky ayaa sidoo kale waxaa laga helay goobta. Sidaas darteed booliisku wax walwalaaba kama qabin inay saldhigga keenaan oo ay wareystaan keliya sida ay wax u dhaceen. Laakiin waxaa la yaabka lahaa ayaa ahaa in Ricky uu xitaa sii fududeeyey arrinta, mana uusan doonin inuu aamuso. Si kastaba ha ahaatee, Ricky wuxuu ku dooday inuusan isagu ahayn qofkii dilka geystay. Wuxuu sheegay inuu isaga keliya garaacay 2 qof, islamarkaana uu weeraray Lara. Qof kale ayuu sheegay inuu yimi, kadibna isaga ayaana dilka dhammaystiray buu yiri. Inkastoo caddeymaha oo dhan ay isaga ka hor yimaadeen, haddana fursad ka wanaagsan ayuu heli lahaa haddii uu iska aamusi lahaa. Ricky waxaa jiray 3 qof oo kale, ma aqaano cid ay ahaayeen. Markii aan meesha ka tegayay waa ay noolaayeen, laakiin waxaan u maleynayaa in qof kale uu iga dambeeyey oo uu dilka dhammaystiray. Anigu waan garaacay isaga si xun, laakiin qof kale ayaa dilay. Inkastoo uu sidaasi ku doodayay, haddana waxaa la go'aamiyey 2 qof ay u dhinteen dhaawacyadii uu Ricky u geystay. Kadib waxaa lagu helay dambiga dilka heerka 1 iyo heerka 2 iyo sidoo kale dambiyo la xiriira weerarkii loo geystay Lara.
laakiin Jawed Mari ayaa qaaday kaalinta koowaad ee wareysigii ugu yaabka badnaa taariikhda. Jawed wuxuu madaxa ka toogtay saaxiibkiisa intii ay baabuurka kusii socdeen Walmart. sababta keliya ee uu sheegay waxay ahayd inuu doonayay inuu ogaado sida ay tahay haddii qof la dilo, keliyana xaraarad dil ah ayaa ihaysa camal. kadib wuxuu isku dayay inuu u baxsado Canada isagoo gaadi dad kale ka codsanaya, laakiin askari booliis ah ayaa qabtay kadib markii uu muuqaalkiisu si sax ah ugu ekaaday sifadii tuhmanaha la raadinayay. waxaa la geeyey saldhigga booliiska, halkaas uu ka dhacay wareysi gaaban. booliisku waxay dhaheen, maxaad xusuusataa inaad ii sheegtay? Jared wuxuu yidhi inaan dambiilahay. booliisku uu dambigee. Jared wuxuu yidhi dil. booliisku waxay dhaheen, yaad dishay? Jared wuxuu yidhi Janeiro. sidee u dishay? qori ayaan madaxa uga dhuftay 2 xabadood. 3 xabadood ayaa la riday. Jared uma muuqan qof wax qarinaya, xitaa wuxuu u muuqday inuu dembiga qirtay ka hor intuusan saldhigga gaarin. waxa xiisaha leh ee wareysigan ma ahayn xawaaraha uu ku qirtay dembiga, waxay ahayd sababta uu qirtay iyo habdhaqankiisii intii wareysigu socday. booliisku waxay dhaheen magacaaga oo buuxa. Jawed Linthren Wayne Murray. booliisku waxay dhaheen sida isku barateen. Jared wuxuu yidhi waxaan aaday qolkiisa jaamacadda, waxaan ka codsaday inuu Walmart i geeyo aniga oo siinaya $20 oo shidaal ah. wuuna ogolaaday. booliisku waxay yidhaahdeen kadib maxaa dhacay? Jared wuxuu yidhi markii aan gaarigii dhignay baakinka Walmart ayaan qorigii la baxay, waxaana ku amray inuu ii kaxayo Ashir, Oklahoma. booliisku maxaa taasoo samaysay? Jared wuxuu yidhi waxaan qorsheynayay inaan geeyo meel baadiya oo aan ku dilo. Jared muu muujin wax naxariis ah, wax qoomama, xitaa fahamka in waxa uu sameynayo ay ahaayeen wax aad u xun. wuxuu si caadi ah uga sheekeynayay sidii isaga oo ka hadlayay dhacdo maalinle ah. qiimeyn cilmi nafsi ah ayaa lagu ogaaday inuu qabay dhalanteed maskaxeed, islamarkaana uu rumaysnaa in looga baahnaa inuu qof dilo. waxaana lagu ogaaday cudurka schizoaffective disorder, waxaana la rumaysan yahay in dhalanteedkaasi uu ku riixay dilka Janeiro. Jared wuxuu sii bixiyey faahfaahin dheeraad oo ku saabsan sababtiisa. booliisku waxay dhaheen imise ayaad qorsheynaysay arrinkan? Jaredna 2 toddobaad. booliisku waxay dhaheen goormaad go'aansatay inuu isugu noqdo qofka? Jared wuxuu yidhi 3 maalmood ka hor dhacdada. maxaa isaga ka dhigay qofka aad dooratay? Jared wuxuu yidhi waxaan aaminsanaa inuu lahaa saameynta ugu yar. booliisku waxay dhaheen maxaad uga jeeday? Jared wuxuu yidhi waxaan u malaynayay inuusan lahayn saaxiibo badan ama dad aad ugu dhow. marka uu maqnaado, maqnaanshihiisu si weyn looma dareemi jirin. dabcan Jared waxaa lagu soo oogay dacwo dil heerkii koowaad, laakiin ugu dambeyn maxkamaddu waxay ku heshay inuusan dembi ahaan mas-uul uga ahayn falka sababo la xiriira waali. halkii dabcan xabsi loo diri lahaa, waxaa loo gudbiyey xarun caafimaadka dhimirka ah, halkaas oo uu ku jiri doono muddo aan la cayimin si uu u helo daaweyntii uu muddada dheer u baahnaa. saaxiibyaal, 3dan kiis waxay dhammaantoodii ku saabsanaayeen dembiilayaal si degdeg ah u qirtay dembigooda. laakiin waxaa jira kiisas badan oo wareysigu ku dhammaado islamarkiiba sababo gebi ahaanba ka duwan. tuhmane 18 jir ayaa la keenay saldhigga kadib markii lagu eeday inuu baabuurkiisa ku dhuftay askari booliisa. kadib waxaa loo aqriyay xuquuqdiisa Miranda, waxayna dhaheen waa muhiim inaad fahanto xuquuqdaada. waxaad xaq u leedahay inaad aamusto. wax kastoo aad sheegto waxaa loo adeegsan karaa maxkamadda dhexdeeda. ma fahantay xuquuqdan oo dhan? tuhmane wuxuu yidhi haa. booliisku waxay dhaheen adigoo xuquuqdaas fahamsan ma doonaysaa inaad hadda ila hadasho? tuhmane wuxuu yidhi may. booliisku waa yahay, waxaad wici kartaa hooyadaada markaan xarunta tagno. isaga oo jira 18 sano oo keliya, wiilkani wuxuu si fiican u muujiyey sida loo wajaho wareysyada booliiska. wuxuu si sax ah u adeegsaday xuquuqdiisa, isagoo si buuxda uga fogaaday inuu wax hadala bixiyo, taasoo ka hor istaagtay baarayaasha inay ka helaan waxa uu naftiisa ku eedeyn karo. saaxiibyaal, muuqaalku waa intaas. maalmahan oo aan yaro maqnaa, ugu dambeyn comeback. insha Allah muuqaaladeen imtixaanaha way socon doonaan hadduu alla weyne raali ka noqdo. مع السلامة.